kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halkan waa Bulsho Sports TV markaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha qodobada aadiyaha waxaa kamid ah Cruz ayaa yiri Ramos wuxuu ku soo laaban doonaa Madrid Mbappe ayaa doonay inuu ka tago kooxdiisa PSG Milan oo isha ku saaxiibka PSG Rafinha Sterling ma jecla inuu ku biiro Tottenham xilligan intaasi waxa ay qodobadii warka haatan ku soo dhawaada asagoo faahfaahsan Cruz ayaa yiri Ramos wuxuu ku soo laaban doonaa Madrid Sergio Ramos wuxuu ku laaban doonaa Real Madrid mustaqbalka sidaasi waxa yiri saaxiibkiisii hore Toni Kroos Ramos ayaa ka tagay Madrid kadib 17 sano uu la joogo Real Madrid kadib markii uu dhacay qandaraaskiisa Toni Kroos wuxuu amaah dusha uu kaga tuuray kabtankiisii hore Sergio Ramos shir jaraa'id uu qabtay maalinimadii Talaadada ay la ciyaarayaan xulka Hungary wuxuu yiri ma aqaan Real Madrid laanta Sergio Ramos wuxuu sidoo kale hubaa inaad mar kale ku arki doontid Real Madrid waxay noqon doontaa dayacaad haddii aadan helin qof sidaasi oo kale ah sita kartida Sergio Ramos wali wuxuu sameyn karaa isaga isbedel weyn mustaqbalka Mbappe ayaa doonaya inuu ka tago kooxda PSG warbixintaasi waxa eegay Cabdiraxmaan Maanka weeraryahankan ayaa cadeeyay inuu doonayo meel ka baxsan horyaalka Faransiiska waxaana la soo warinayaa in Kylian Mbappe uu soo dhaweynayo dalabyada ka soo gaarayay kooxaha Liverpool iyo Real Madrid xilli ciyaareedkan wuxuuna doonayaa fursad cusub Kylian Mbappe ma aaminsan aragtida Paris Saint-Germain wuxuu doonayaa inuu ka tago ciyaaryahanka mar rumeysana mashruuca Leonardo haddii uusan ka tagin xagaagan Kylian Mbappe waxay noqon doontaa xidig bilaash kaga taga xilli ciyaareedka soo socda haddii Mbappe uu muujiyo rabitaankan inuu baxo waxay la micno tahay inuu ku qasban yahay inuu raadsado koox in PSG ay u baahan tahay raadinta bedelkiisa laakiin wararku wuxuu yahay in Kylian Mbappe uusan doonayn inuu sii joogo PSG Milan oo isha ku saaxiibka PSG Rafinha warbixintaasi waxa eegay Xasan Cumar Xuseen kooxda Milan ayaa isha ku ciyaaryahanka khadka dhexe ee Paris Saint-Germain Rafinha sida laga soo xigtay Calcio Mercato Rossoneri ayaa 28 jirkan u aragtay badil macquul ah ee haakan kaasoo si bilaash ugu saxiixay kooxda ay xifaaltamaan ee Inter bilowgay isbuucan Rafinha wuxuu kooxda PSG heshiis kula jiraa 2023 laakiin wuxuu kaliya uu kooxda ka soo muuqday 15 kulan oo League 1 xilli ciyaareedkii 2020 iyo 2021 Sterling ma jecla inuu ku biiro Tottenham xilligan xidiga kooxda Manchester City ee Raheem Sterling ayaa xiiseynaynin inuu u saxiixo Tottenham xilli ciyaareedkan Manchester City ayaa isku dayaysa inay sugto weeraryahanka Tottenham ee Harry Kane iyadoo adeegsanaysa saaxiibkiisa ay isku wadanka yihiin ee Sterling qayb ka mid ah heshiiska si kastaba ha noqotee Spain waxay sheegaysaa in Raheem Sterling uusan doonaynin inuu dhaqaaqo kooxda ka dhisan waqooyiga London Manchester City ayaa diyaar u ah inay 100 milyan oo ganiga kula soo wareegto Harry Kane halka sidoo kale ay ku soo dari doonaan ciyaartooyda ay Tottenham doonaysa inay ku soo darsato kooxda sida Gabriel Jesus Emerick Laporte ama Raheem Sterling Barcelona ayaa wali heshiis kordhin la gaarin Messi warbixintaasi waxa eegay Xuseen Cumar Xuseen kooxda Barcelona iyo Lionel Messi ayaa wada hadal ku jira laakiin wali ma aysan ku heshiin heshiis kordhintiisa heshiiska Messi ee Camp Nou ayaa lagu wadaa inuu dhacayo dhamaadka bishan June taasoo la micno ah inuu noqon doono wakiil xor ah muddo isbuuc ka yar inkastoo Barcelona ay ku rajo weyn tahay heshiis kordhinta Messi haddana wax guul ah oo laga gaaray heshiis cusub ma jiran inkastoo ay Barcelona ku adkaysatay xilli ciyaareedka niyad jabka leh xilli ciyaareedkii 2020-2021 haddana Messi wuxuu mar kale noqday gooldhaliyaha ugu sareeya La Liga waxauna dhaliyay 30 gool 35 kulan oo u saftay horyaalka Chelsea ayaa Man City kula tartamaysa saxiixa Grealish warbixintaasi waxa eegaysa Qamar Maxamed Cumar Chelsea ayaa qarka u saaran inay soo bandhigto dalabkeeda suuqa kala iibsiga waxayna u dhaqaaqaysaa xidiga kooxda Aston Villa ee Jack Grealish waxaa sidoo kale doonayo kooxda heysata horyaalka Premier League ee Manchester City dalabkiisa milkiilaha Chelsea Roman Abramovich ayaa diyaar u ah inuu bangiga u jibiyo saxiixa heerka sare leh ee Grealish Chelsea waxay horeyba u heysatay weeraryahano aad u wanaagsan laakiin waxaa laga yaabaa inay liiskooda ku daraan adeega Grealish ayaa horey loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqo Manchester United laakiin waxay u muuqdaan inay dareenkooda u weecinayaan bartilmaameed kale
25 jirkan ayaa ku soo bilowday kulankiisii ugu horeysay ee xulka England ee Euro ciyaartii ay la ciyaareen xulka Czech Republic Talaadadii isagoo ka caawiyay Raheem Sterling goolkii uu dhaliyay kulankaasi. Man United, Barcelona iyo Juventus ayaa baadi goobayaan Kozlowski. Manchester United ayaa ka mid ah kooxaha doonaya daayarka reer Poland ee Kozlowski xilli ciyaareedkan 17 sano jirkan ayaa kulankiisii ugu horeeyay u saftay Spain sida laga soo xigtay Gazzetta dello Sport. Kozlowski ayaa xiiseynaya kooxaha dhowr ah oo ay ku jiraan Manchester United, Barcelona iyo Juventus. Borussia Dortmund ayaa loo maleynayaa inay haysato fursadda ugu fiican ee kula soo saxiixan karto ciyaaryahankan, halka Kozlowski laga yaabo inuu ku dhibaatoodo inuu si joogto ah ugu ciyaaro kooxaha kale ah ee doonaya saxiixiisa. intaan kusoo gabagabeynayna wararkii ciyaaraha Bulsha Sports TV iyo aniga Municma waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.